Waa kuma ninka awoodda badan ee beddelaya madaxweynihii geeriyooday ee Iiraan kadib markii la xaqiijiyay warka ku saabsan geerida madaxweynihii Iiraan Ibrahim Ra'iisi oo ku dhintay shil diyaaradeed. Mohamed Mokbar Dasturi, ku-xigeenkiisii koowaad, ayaa la wareegay xafiiska madaxweynaha dalka isagoo sii hayn doona mas'uuliyadda madaxtinimo ilaa inta ay ka dhacayso doorashada. Waxa uu xilkani hayn doonaa muddo 2 bilood ah sida uu qabo dastuurka Iiraan. Doorashada madaxtinimada ee Iiraan ayaa la qaban doonaa 50 maalmood ee soo socda, sida ku cad qodobka ee dastuurka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Haddii uu geeriyoodo madaxweynaha dalka, ku-xigeenkiisa koowaad isagoo oggolaansho ka helaya hoggaanka sare, waxaa la wareegaya awoodda iyo mas'uuliyadda madaxweynaha, guddoomiyaha golaha wakiilada iyo madaxda garsoorka, iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad. Waxaa ku waajib ah inay diyaariyaan madaxweyne cusub oo lagu soo dooranayo ugu badnaan 50 maalmood gudahood. Waa kuma Mohamed Mokbar. Ka hor inta uusan noqon ku-xigeenka koowaad ee Ibrahim Ra'iisi, Mohamed Mokbar Dasturi wuxuu muddo 15 sano ah madax shaqaalaha fulinta ee xarunta Ferman Imam, oo ka mid ah koox dhaqaale ahaan ugu qanisan Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Xarunta ay si toos u hoos timaado hogaamiyayaasha sare ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan. Waxa uu noqday madaxweyne ku-xigeen isagoo la tartamaya rag kale oo caan oo ku jiray safka hore ee tartanka. Mohamed Mokbar Dasturi wuxuu dhashay bishii Juun sanadkii 1955 isagoo ku dhashay magaalada taariikhiga ah ee Dasturi. Qoyskiisu waxay ahaayeen kuwo ahludiin ah. Aabihiis Sheikh Abbas Mokbar wuxuu ahaa daaci iyo wadaad diinta dadka waaniya, marna wuxuu ahaa imaamka ku meel gaarka ah ee Dasturi. Mohamed Mokbar wuxuu waxbarashadiisa dugsiga hoose iyo sare ku qaatay Dasturi iyo Azhar, sida ay qoreen warbaahinta Iiraan. Waxa uu shahaado koowaad ee jaamacadda ka qaatay injineernimada korontada, halka shahaadada masterka uu ka qaatay maamulka. Waxa kale oo uu shahaado ka qaatay cilmiga maamulka iyo qorsheynta dhaqaalaha. Lama hayo xog badan oo ku saabsan ninkani ka hor bilowgii dhaqdhaqaaqii kacaanka Iiraan, balse waxaa la sheegay inuu xubin ka ahaa Husainiyiinta, oo ah koox ka soo horjeeday dowladdii Pahlavi, sida oo lagu daabacay wargeyska. Kadib markii la aasaasay ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ee loo yaqaan RGC qaybtooda Khuzestaan, waxaa loo magacaabay sarkaal caafimaad ee Dasturi ee ciidamada RGC, wuxuuna xilka hayay sanadihii ay socdeen dagaalka Iiraan iyo Ciraaq. Dhammaadkii dagaalka kadib, Mohamed Mokbar wuxuu noqday maamulaha shirkadda isgaarsiinta ee Dasturi. Waxaa sidoo kale ahaa guddoomiye ku-xigeenka Khuzestaan in muddo ah. Intaa kadib, wuxuu aaday Tehraan intii uu madaxweynaha ahaa Mohammad Voroshilnadeh, kadibna wuxuu qayb ka noqday hay'adda lagu magacaabo Mustafaan Foundation, isagoo jagooyin muhiim ka qabtay. Xilalka kale ee uu soo qabtay Mohamed Mokbar waxaa ka mid ah inuu soo noqday guddoomiyaha guddiga maamulka ee bangiga Sina, kaas oo ka hoos shaqayn jiray hay'adda Mustafaan Foundation. Bishii Janaayo sanadkii 2021, waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka markii ay cunaqabateyn ku soo rogtay xarunta fulinta ee Ferman Imam iyo madaxii xilligaas Mohamed Mokbar waxay ku maantay bahal ganacsi. Waxaa jiray qiyaaso kala duwan oo ku saabsan hanti xarunta taliska sare. Sanadkii 2013, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warbixin baaritaan ah ku sheegtay in xarunta fulinta ay tahay boqortooyo dhaqaale oo weyn, waxayna ku qiyaastay qiimaha hantideed waqtigaas ilaa $95 bilyan. Waxaa magaca Mohamed Mokbar uu ka soo muuqday warbaahinta sanadihii u dambeeyay. Uu ka soo shaqaynayay xarunta iyo markii uu dillaacay xanuunka corona, iyadoo xaruntu ahayd mashruuc wax soo saarka tallaalka gudaha ee Covid-19. Mohamed Mokbar ayaa ku guuleystay tartankii jagada madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee ay aadka u baadigoobayeen magacyo aad loo yaqaan sida Saciid Jalili, waxaana jagadani loo magacaabay 17 Agoosto, 5 maalmood kadib markii xilka uu ka tagay Ibrahim Ra'iisi.